السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا صهيب وكسعودة channelka daawasada. maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay sidee baan u qurxin lahaa mobilkayga. waa cashir aan horey inoo balaqaaday ayaan rabaa inaan maanta idiin soo bandhigo. fadlan ha ka iloobin subscribe, like, comment. fadlan intaanan cashirkan usii gudbin waa muhiim inaad downloadgareyso 4 application. haddaba su-aashu waxay tahay application xagee baan ka heli karaa. application waxaad ka heli doontaa linkiga hoosta aan soo dhigo ee kayga. okay, application ugu horeeya waa Hyperion. okay, application muxuu qabtaa ayay isweydiinaysid marka horeysa. application wuxuu qabtaa wuxuu bedelayaa design-ka mobilkaaga. waa launcher oo kale. markaad application-ka furto and downloadgareyso waad furi doontaa. marka horeysa qaabkan buu kusoo baxaya marka iska sugaysaa. kadibna xagaareed waxaad taabsanaysaa dhexda okay baa leedahay. marka horeysa qaabkan kuu soo baxaya. qaabkana waa qaab aad mu qurux badno. marka waxaan rabnaa inaan si qurux badnaysiino. okay, si aan si qurux badnaysiin lahayn waad tuujinaysaa screen-kaaga. halka aad batagaysa ku qoran tahay icon back ku qoran tahay. markaad tagto waa kan waxaad downloadgareyn doontaa khayraadsan inuu sheegay application ma downloadgareyn doontiin isagana application ay ku qoran tahay UX ku qoran tahay. application waxaad ka heli doontaa linkiga marka hoostaad ka heli doontiin. application markaad downloadgareysiin application kale Hyperion at 14 screen-ka tuujin saasaad screen-ka u tuujin doontaa. kadibna waxaad tagi doontaa xagga ay ku qoran tahay icon back. marka xagga taabsato waa kan application-ka aad downloadgareyn doontiin ay ku qoran tahay UX lead. marka application ka taabsanaysaa imka uu soo baxaya oo iska sugaysid. marka waa ka imka uu bedelay imka qurux baneysay mobilkeena. waa ka asxaabi application-ka saddexaad ee u baahantiin inaad downloadgareysiin oo muhiim ah waxaa lagu magacaabaa Waloop. waa application runtii aad u fiican ood ka heli doontiin live wallpapers runtii aad ku cajabiya. waxaa ku jira live wallpapers aad u badan midkii ku cajabiya. markaad ka dhex hesho simple waad downloadgareyn doontaa. sada arkaysinba way badan yihiin live wallpaperskan. marka midkii ku cajabiyo unbaad ka dhex dooranaysaa adu. anu maalanka waxaa rabaa inaan halkaa may ka soo noqo dhinacan maaha. waxaa rabaa inaan kaati kuwa ku qoran tahay AMOLED kamaa rabaa inaan ka dhex hego kuwa qurux badan iyo cajabiya. asxaabay ani waxay cajabiyey kan sadakaysiin kan color kale ayaa cajabiyey. kaasna marka downloadgareysan doonaa. okay asxaabay waa kan downloadgareyey aad buu runtii qurux badan yahay sadakaysiin dhammaantiin. haddaba haddaad rabto inaad isticmaashiin waa inaad xagga yare taabsatid number 3 ku qoran tahay. markaad taabsatid xayeysiis waa inaad daawatid si aad u isticmaasho bilaash. haddii aad rabto waad iibsan kartaa bilaa xayeysiis. laakiin haddaad rabto inaad bilaash ku downloadgareyso waa inaad xayeysiis daawataa. waxaad taabsanaysaa xagga ugu sareysa ay ku qoran tahay watch video. xayeysiis baa kusoo baxaya ilaa 30 second socda. markuu dhammaado ayaad downloadgareyn kartaa. xayeysiiska dhammaado xagga dusha extra taabsanaysaa. kadibna waa kaa xagga aad arkaysiin mooyaane 3 waa ku siiyey 3 baa ku siiyey ka soo noqo. saxaabay waxaad taabsataa dhinaca ku qoran tahay 3 kadibna yes taabso si uu u downloadgareeyo live wallpaper-kan. waxyaar baa iska sugaysaa intuu downloadgareeyo. okay, saamanku ugu soo baxo waxaad taabsanaysaa dhinaca yare akhtarka. kadibna uu downloadgareyn doona. haddana waan aad sugtid. waa application asxaabay kadeeda dulqaad iyo samir buu baahan yahay. asxaabay waxaad taabsataa dhinacay ku qoran tahay okay si aan u gudubno. kadib dhinacan markuu keeno waxaad taabsataa xagga ugu sareysa ay ku qoran tahay set wallpaper. kadibna wuxuu ku weydiinayaa dooqaaga midkeeba ka dhignaa ma home screen mise lock screen mise labadaba. ama maalan waxaa ka dhiganayaa home screen iyo lock screen. lock screen waa markaa telefoonka xidho page-ka hore kusoo baxaya. imka waa ka waxaa soo baxaya live wallpaper-kii.
xitaa haddaan xidho telefoonkayga waan tusi live wallpaperkaas arkaysiin aad buu runtii u qurux badan yahay. waxaan noori lahaa downgrade. okay asxaabta dhammaantiin applicationkan ugu dambeeya ee downgrade doontiin waxaa lagu magacaabaa True Edge. okay applicationkan muxuu qabtaa isweydiinaysiin. applicationkan wuxuu qabtaa markuu notification kusoo dhaxo notification telefoonkaaga kusoo dhaco amba message ha ahaado amba message wax kasta ha ahaado ayuu ku sameeyaa color qurux badan buu hab yar qurux badan ayaad ku heli kartaa notificationka. haddaba hayn tuso waxaan ka wado color qurux badan. okay marka applicationka furtiin qaabkan ku soo baxay marka horeysa waana taabsid allow saddexda option ba allow waana siisid ka soo noqo kadibna allow ka ku xiga kadibna ka saddexaad allow in kan wada mid ka saddexaad waxaan ma horaan ku xigay laakiin idinkuna allow mid ku xigaysiin. okay marka dhamaysiin xaga yar waa taabsanaysiin next. qaabka markuu soo baxay marka hore application ku asxaabay waxaan rabaa inaan tuso sidoo yahay markastuu message ku soo dhaco ama notification oo mobilkaagu damsan yahay eega haddaad dhegeyso markuu mobilkaagu damsan yahay qaabka notification kugu soo dhici doonaa dhag waa kan kalarka quruxda badan leh. markastuu message ku soo dhaco kalarkaas oo kale ayuu kugu soo dhici doonaa laakiin waa markuu screenkaagu dansan yahay amba off yahay. haddii aad rabtid in aad customize garayso kalarka waxaas oo dhan waxaad tegaysaa add lighting setting baad tegaysaa waa kan kadibna waxaad taabsanaysaa xaga ay ku qoran tahay edge adjustment. haddaad rabtid kalarkan waa weyn yahay sadarkiisa size-kiisa weyn. haddaad rabtid inaad yaraysid xaga ay ku qoran tahay border size ay yareynaysiin waa kan buu yareeyey kadibna corner bottom ka yareeya corner top ka yareeya oo kale inta way si yar farsamo qurux badan ka dhigay kadibna save dhaha. markaas saxaabay markastuu message ku soo dhaco oo mobilkaaga damsan yahay qaabkan buu kugu soo dhici doonaa runtii aad u qurux badan sadarkiisiin. applicationkan hadduu runtii ku cajibiyo way downgrade doontaa markaad rabtid. okay markaad rabtid inaad ka baxdina xagga yar madow ma laba jeer taabsanaysaa degdeg screenkaaga laba jeer taabso ka baxaya. okay asxaabay waa kuwa afarta application ee ku qurxinayn mobilkaaga waa afarta application. haddaba applicationka ku cajibiyo waa downgrade doontaa linkiga waxaan soo dhigayaa hoosta. fadlan ha ka iloobin like comment waayo waxaan u baahanahay dhiirigelin si aan usii wano ka daawasiga markastana manu helno support. marka waxaan u baahanahay inaad noo like garaysiin iyo noo comment garaysiin. aad waa mahadsantihiin akhyaare. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.